السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada Baghdad Online Academy iyo koorsada Public Speaking Skills. Videogan waa video hordhac runtii aan ugu talagalnay inaynu ardada iyo bulshada Soomaaliyeed ee nagu xiran barahina bulshada kala duwan YouTube-ka, Facebook-ka, Instagram-ka iyo Telegram-kababa inaynu ka siino faahfaahin iyo tafaasiil ku saabsan koorsada Public Speaking amaba xirfadda fagaara ka hadalka koorsada ku saabsan. Eh, runtii waxaa isweydiin mudan halkan su'aal oo inuu qof isdaha laga yaabaa Baghdad Online Academy oo dadaalaysaan ood mahadsantihiin laakiin how come siday ku dhacday in public speaking aad qaab online ah aad ku bixisaan maadaama xirfadda fagaara ka hadalka ay tahay xirfad practical ah dad lasoo hor istaagayo laga hor hadlayo runtii jawaabta taas su-aashaas waxay noqon kartaa runtii wax walba horta waxa uu leeyahay qayb practical ah iyo qayb concept ah ay leeyihiin xirfad walbo waxay u baahan tahay qaybna waa art qaybna waa science qaybna waa ruleska iyo regulationka iyo cilmi ahaan inaad waxaan u taqaano qaybna waa inaad practice gareyn karto ood wixii aad samayn karto waxaa la mid ah gaari wadida for example qofka intuusan gaariga isheeg steeringa gacanta ku dhigin waxaa ka horeyso inuu kalaas fadhiisto uu barto gaariga qaybihiisa kala duwan inuu barto isheeg shuruucda la xiriirto gaari wadida iyo wada isticmaalka iyo safetyga waxaasoo dhan ayaa ka horeysa horta inta uu qofka gaariga uu fadhiisan inuu steeringa wadin so marka sidoo kale public speaking amaba xirfadda fagaara ka hadalka intaadan ummadda soo hor istaagin waxaa ka horeyso runtii inaad taqaano cilmi ahaan xirfadda fagaara ka hadalka aad taqaano sida dadka looga hor hadlo sida speecheska amaba khudbadaha loo diyaariyo inaad barato isheeg muxuu ahaa xirfadaha iyo farsamooyinka kala duwan fagaara ka hadalka waxaasoo dhan markii aad taqaano ayaad runtii si wanaagsan ayaad dadka u hor istaagi kartaa ayaadna uga hadli kartaa adigoo isticmaalayo ruleska iyo principleska cilmiyeysan ee fagaara ka hadalka haddaba marka koorsadan waxaan ugu talagalnay runtii inaynu bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda danaynaysa inay aqoontooda iyo xirfadooda ay kordhiyaan gaar ahaan xirfadda fagaara ka hadalka inaynu ka haqabtino baahidaas la xiriirta fahamka iyo xirfadda diyaarinta iyo soo jeedinta public speaking haddaba waa maxay public speaking is a formal face-to-face communication method where a person or persons uses the medium of speech to inform and or influence a group of listeners amaba audience maxaa loo jeeda public speaking amaba in laga hadlo fagaare waa xiriir weji ka weji ah dad amaba shakhsi uu isticmaalayo wasiilada hadalka si uu u ogeysiiyo inform amaba influence uu saameeyo dad dhegaystayaal oo asaga qofka dhegaysanayo so marka definitionkan waxaan ka baranaynaa arrimo muhiim ah speechka public speak waa face to face wax face to face oo dadka qof intuu hor istaago uu la hadlayo waa communication waa communication face to face ah waxaa sameyn kara shakhsi amaba group of people ayaa sameyn karo wasiilada lagu gudbinayana communicationkaas waa speech waa hadalka lan communicationka qoraal uu noqon karaa isheeg muxuu ahaa halkan speech ayaa qofka isticmaalaya hadafka uu sameynaya maxay tahay waxay noqon kartaa in uu inform gareeyo macluumaad uu gudbiyo for example maamule la hadlayo shaqaalihiisa u sheegayo maalan waxyaaba soo kordhay amaba process cusub oo la isticmaalayo amaba shuruuc cusub oo soo kordhay amaba inuu saameeyo sida hogaamiye bulshada la hadlayo raba inuu saameeyo bulshadaas fikirkooda wax ka bedelo amaba u kaxeeyo amaba u jiheeyo yool iyo hadaf iyo qorshe marka asaga ah uu leeyahay so marka runtii public speakingka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay xirfad ahaan runtii waxaana muhiimadiisa ay tahay mid runtii aan ka marnayn dhammaan isheeg muxuu ahaa nolosha guud ahaan haddii tahay educationka waxbarashada hadday tahay maamulka iyo xukunka government hadday tahay ganacsiga hadday tahay runtii waxa waaye ereyada speechka ah ee dadka hortooda laga horjeediyo waxay leeyihiin awoodda inay dadka inform gareeyaan ay wax
ay ka dhaadhiciyaan, persuasion ay ku sameeyaan, amaba ay educate gareeyaan, ay baraan, amaba xataa ay entertain gareeyaan. Entertainmentiga dabcan waa madadaalada. dabcan waxaad la socotaa waxa loo yaqaan inay dhahaan stand up comedies, dadka comediga isticmaalo amaba shactirada dadka inta hor istaago ka qoslisiiyo. Is part of public speechka ee la sameeyo ayay ka mid tahay. haddaba isheeg muxuu ahaa, waxaa kaloo la ogaaday runtii erayada spoken words can be even more powerful than the written words in the hands of the right speaker. runtii erayada isheeg lagu dhawaaqo, lagu hadlo ayaa waxa ay ka saameyn badan yihiin, ayna ka awood badan yihiin runtii erayada qoran. waa haddii erayadaas uu ku hadlayo qof powerful ah, aqoonta public speakerkana yaqaana. so marka runtii public speaking waa muhiim weeye. haddii aad tahay qof dadka waxbaro, educator aad tahay, haddii aad tahay qof hogaamiye ah, hogaamiye dhinaca ganacsiga ah, maalan maamule isheeg, amaba dhinaca bulshada community leader, amaba dhinaca xukunka iyo siyaasadda political leader, isheeg muxuu ahaa yani door weyn uu ka ciyaaraa runtii dhinac walbo, dhinacyada kala duwan isheeg muxuu ahaa uu qofka bulshada saameyn uu ku yeelan karo. haddaba koorsadan yaa loogu talagalay yeena aad u anfacaysaa. waxay u anfacaysaa public speakerska, dadka already public speechka sameeyo, fagaaraha ka hadlo, laga yaaba inay u baahan yihiin xirfadaha qaar. waxay ka baran doonaan farsamooyin, xirfado oo laga yaaba inay ka maqan tahay, gaar ahaan markii laga hadlayo diyaarinta iyo soo jeedinta public speechka. waxaa koorsadan aad iyo aad uga faa'iidaya. dabcan dadka public speaker markaan leeyahay waxay noqon karaan dad influencers ah, bulshada saameyn ku leh, waxay noqon karaan ducaad oo ummadda wacdiya, waxay noqon karaan macallimiin, dadka waxbara. public speakers they are many, they come in many forms. waxaa ka mid ah leaders iyo managerska of all levels, hadduu yahay levelka ugu sareeya leadershipka, iyo levelka dhexe, iyo levelka hoose, amaba managerada leveladooda kala duwan. waxaa u baahan runtii sidoo kale koorsadan employeeska iyo professionalska. runtii qof walba employee ama professional uu u baahan yahay, because haddii maanta aadan u baahnayn public speechka, beriyaad u baahnaan doontaa, because qofka naturally wuxuu sameynayaa horumar. maanta haddii aadan cidna public speech aan u jeedinaynin, beri waad soo jeedin doontaa. runtii beri waxaa lagu dhihi karaa soo jeedi, مثلا department ayaad mas-uul ka tahay, amaba ka tirsan tahay, amaba hoolaa lagu diray, waxaa lagu dhihi karaa soo jeedi report ku saabsan waxqabadkaagii, amaba mashruuc ku saabsan, amaba wixii la halmaano. sidoo kale xataa runtii public speechka waxaa u baahan ardada jaamacadaha dhigto iyo iskuulada, runtii because markaad jaamacadda dhigto for example, waxaa lagu diri karaa assignments oo speaking ah ayaa lagu diri karaa. taasna waxay kaaga baahan tahay xirfadda fagaara ka hadalka inaad taqaano. waxaad u tartami kartaa xataa hogaanka ururka ardada jaamacadda aad isla dhigataan, amaba kuwa jaamacaddii aad ka qalin jibisay. waxaasoo dhan waxay kaaga baahan yihiin xirfadda public speechka. waxaa u baahan business ownerska, amaba dadka ganacsiyada iskale u shaqeeyaan dad amaba bulshada hor imaanayo, si ganacsigoodii iyo businesskoodii ay uga waramaan. sidoo kalena shaqaalahoodii u baahan inay influence gareeyaan, amaba ay inform gareeyaan. waxaa u baahan community leaders, hadday yihiin salaadiin ama hogaamiyaal bulshadeed, bulshada dhex taagan, dhex ordaya, runtii u baahan marar badan inay bulshada wacyigeliyaan, ay educate gareeyaan, inform gareeyaan, influence gareeyaan. waxaasoo dhan runtii. so marka in general waxaan dhihi karnaa waa koorso muhiima runtii, ay yar tahay cidaan u baahnayn. haddaba waa maxay waxyaabaha lagu baran doono koorsadan? waxyaaba badan aan ku baran doonaa koorsadan insha allah tabaaraka watacaala. waxaa ka mid ah cutubka koowaad aan ku qaadaa dhigi doono conceptiga iyo importanciga public speaking. waa maxay public speaking, muhiimadda gaarka uu leeyahay waan ka hadli doonaa. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa noocyada kala duwan ee public speaking, types of public speaking. runtii public speaking noocyo badan ayuu leeyahay, ayadoo mar walba la raacayo hadafka iyo yoolka lagu gal leeyahay public speechka. marka noocyada kala duwan ee public speakingka ayaan eegi doonaa, iyo mid walba mid kale siduu ugu duwan yahay. waxaan kaloo baran doonaa public speaking delivery styles, amaba qaababka kala duwan ee loo jeediyo public speechka. runtii public speechka qaabab kala duwan ayaa jirto oo loo jeediyo, ayadoo mar walba laga duulayo yoolka iyo hadafka looga leeyahay public speechka. waan baran doonaa. sidoo kale waxaan baran doonaa xirfadda qorista public speechka. runtii waa muhiim. dad badan waxaa ka maqan runtii in wax walba oo dadka communication walba wuxuu ku fiicaya in la qoro. waxaan la qorin, si fiican aan loo baarin, si cilmiyeysanna aan loo diyaarinin,
runtii wax micno ama saameyn kuma yeelan doono bulshada. So it's important in qofka uu barto sida loo diyaariyo misna loo qoro public speechka. Public speechka wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan. Wuxuu leeyahay introduction, wuxuu leeyahay body, wuxuu leeyahay conclusion. Mid walba oo qaybaha ka mid ah speechka sida loo diyaariyo, waxyaabaha loo baahan yahay in lagu daro qayb walba qaybahaas ka mid ah ayaan baran doonaa insha Allah. Waana xirfad aad iyo aad muhiim u ah. Waana waxyaabaha runtii qayb ka qaadanayo public speechka inuu noqdo mid saameyn leh. Sidoo kale waxaan baran doonaa overcoming fear of public speaking. Runtii xirfadda fagaara ka hadalka dad badan haddaad weydiiso waxay ku leeyihiin waan ka cabsanaynaa aniga waxaan uma baranin. Cabsida waa shay common ah. Dadka inta badanna ay ka cabsadaan public speaking amaba fagaara ka hadalka. Haddaba cabsidaas sideen uga gudbaynaa? Caqabada ka cabsada in laga cabsado public speakingka sideen uga gudubnaa? Waxaad baran doontaa skills iyo techniques iyo tools ayaa lagu bari doonaa. Waan isleenahay haddii aad samayso waad ka gudbi doontaa runtii caqabadaas fagaara ka hadalka. Sidoo kale waxaan baran doonaa practice in the public speech amaba qaababka kala duwan ee loo practice gareeyo intaadan jeedininba public speechkii sidee iskugu diyaarinaysaa, public speechka sidee u practice gareynaysaa, qaababka loo kala duwan ee loo practice gareeyo iyo farsamooyinka la xiriira waan baran doonaa. Ugu dambeyntiina sidee loo jeediyaa public speechka, yacni qorista isheeg yani iyo diyaarinta iyo soo jeedinta public speecheska ayaad baran doontaa insha Allah tabaaraka wa tacaala. Waxaan hubaa wax badan oo aqoon ah inaad ka kororsan doontaan koorsadaan. Haddii haddaba aad danaynayso koorsadaan, fadlan nagala soo xiriir nambarka WhatsAppka ee kaaga muuqda shaashada ee Baghdad Online Academy. Sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad la wadaagto qof walba oo aad is leedahay waa ay khusaysaa koorsadaan, wax badanna wuu ka faa'iidi doonaan. waadna ku mahadsantihiin dhegeysigiina. intaan ku kulmi doono kalaasyada waxaa idinka tegayaa fi amaan illah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.